Soomaalidu waa inay la wareegaan amnigooda intaan ka badan inagu ma ilaalin karno. Sidoo kale ma bixin karno qarashaadka loogu talagalay in lagu ilaaliyo amnigooda. Iyaguse waa inay isku filnaadaan oo amnigooda ay iyagu xoojiyaan ciidamadoodana ay la wareegaan amnigooda. Waxa sidaas dhahaya waa dalalka Gabon iyo Cameroon oo ka tirsan Midowga Afrika. Dalalkan ayaa sheegay in Soomaaliya loogu baahan yahay in amnigeeda iyadu ay la wareegto. Waxayse Midowga Afrika ay u jeediyeen inaysan awoodin qarashaadka dheeraadka ee lagu ilaalinayo amniga ee Soomaaliya. Gabon iyo Cameroon waxay xuseen in howlgalka USOM oo gabi ahaanba noqday mid fashilmay isla markaana loo baahan yahay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo maadaama uusan haysanin taageero caalami ah. Dalalkan waxay kaloo ay xuseen oo ay sheegeen in xilligan ay tahay xilligii ugu habboonood ciidamada Afrikaanka ay kala bixi lahaayeen ee gudaha Soomaaliya. Waxayse sheegeen inaysan awoodin qarashaadka lagu ilaalinayo amniga Soomaaliya. Qarashaadka ay qaadanayaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka, mushaaraadkoodii iyo sidoo kale adeegyada ciidamada dheeraadka ay u baahan yihiin. Waxay sheegeen inaysan ku filneen isla markaana Midowga Afrika uusan qaabili karin. Sidoo kale waxay xuseen inaysan sii wadi karin taageerada ee loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo. Waxay ka hadleen in xilligan loo baahan yahay in la joojiyo gabi ahaanba howlgallada noocan ah oo Midowga Afrika ay ka wado dhulalka Afrikaanka. Waxayna xuseen in loo baahan yahay in Soomaaliya iyadu ay la wareegto amnigeeda, sidoo kalena ay gacanta ay ku dhigto. Waxay sheegeen in maalinka ciidamada shisheeye ee Afrikaanka ay ka baxayaan dalkooda loo baahan yahay Soomaaliya inay adkeyso amnigeeda, muhiimad gaar ah ay siiso, sidoo kale ay ka shaqeyso nabadeeda. Waxayna xuseen in maadaama isaga taageerada caalamiga iyaguna ay isaga bixi doonaan gudaha dalka, howlgalkana la soo gabagabeeyo. Waa sida ay soo jeediyeen Gabon iyo Cameroon sida laga soo xigtay The East African. Wixii faahfaahin kale ka soo kordha arrinkan halkan oo TTN Somali TV kala soco. Mahadsanid.